tobankii abriil 1960 waa xilligii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kaasoo lagu aasaasay ciidan ka kooban 8 horimood oo lagu magacaabi jiray waqtigaasi Cali Boobaye. ciidankaasi ayaa tiradiisu ahayd 2,000 oo askari oo laga kala qoray 6 gobol oo ka tirsan gobolada koonfureed ee gumaysigii Talyaaniga uu gumaysan jiray. degmo kasta waxaa laga soo xulay 50 askari oo tababarka amaba kuruudka ciidanka ku qaatay xerada Bootika oo markii dambe loo bixiyay dugsiga tababarka ee Xalane. dhanka kale gobolada waqooyi waxaa xilligaasi ka jiray ciidan lagu magacaabi jiray Somali Scouts oo ka koobnaa 6 horimood iyo ciidan talis ah oo yar. ciidankaasi ma lahayn saraakiil xornimada ka hor, laakiin waxaa tababar dibadda loogu diray markii ay soo dhawaatay xorriyadda rag uu ka mid ahaa Xasan Cabdulle Walanwal Kayd. horimahaasina waxaa lagu kala magacaabi jiray A Company, B Company, C Company, D Company, E Company iyo F Company. ciidanka waqooyiga markii xornimadu ay soo dhawaatay waxaa la dooransiiyey in la ruqseeyo oo xaqooda la siiyo iyo in xaqooda loogu wareejiyo dowladda Soomaaliyeed ee dhalan doonta. waxaana sidaasi dooransiiyey gumaysigii Talyaaniga ee xilligaasi maamuli jiray gobolada waqooyi, waxayna doorteen in xaqooda loogu wareejiyo dowladda Soomaaliyeed ee dhalan doonta. waqtigii xorriyadda loo dabaaldegayay ciidamadii waqooyiga ka dhisnaa waxay ka qayb qaateen halgankii xornimo udirarka ee SNL. qaar badan oo iyaga ka mid ahna waa la ruqseeyey halka kuwo kalena la xirxiray. sooyaalka taariikheed ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa mid aan la soo koobi karin, balse maamulkii xorriyad gaarsiinta ee Talyaaniga ee FIS wuxuu ka soo dhex saaray ciidankii booliska raggii u badnaa ciidankii hore, wuxuuna ka dhigay xidig sugayaal. waxa uuna u xiray xidig madow raggaasoo tiradoodu ay gaaraysay xilligaasi 20 ruux. waxaa ka mid ahaa Daa'uud Cabdulle Xirsi, Maxamed Abshir Muuse, Maxamed Ibraahim Liiqliiqato, Maxamed Ceenaanshe Guuleed, Xuseen Kulmiye Afrax, Maxamed Siyaad Barre, Maxamed bin Qaasim Hilowle Dhignaas, Maxamuud Tahdaafow, Cabdulle Sandheere, Jaamac oo Muuse, Cabdulle Barre Qalaaye, Cali Cilmi Barre, Maxamed Cali Mire, Cusmaan Sabriye Cali, Cusmaan Sokor, Ismaaciil Maxamed, Cabdulle Carre Gubatay, Surwaal Gaab iyo sidoo kale Derbiye Salaan. raggaasi waxay nasiib u yeesheen in tababar dalka dibaddiisa loogu diro, gaar ahaan dalka Talyaaniga oo ay ku soo qaateen xeeladaha iyo tabaha kala duwan ee loo carbiyo ciidamada milatariga iyagoo loo kala qaybiyey dhowr kooxood. kooxdii koowaad ee ugu horreysay ee loo diray koorsadii Talyaaniga sanadkii 1952 ee soo qaatay tababarka ciidanka milatariga waxay kala ahaayeen Daa'uud Cabdulle Xirsi, Maxamed Abshir Muuse, Maxamed Ceenaanshe Guuleed, Maxamed Ibraahim Liiqliiqato, Xuseen Kulmiye Afrax, Maxamed Siyaad Barre, Maxamed bin Qaasim iyo Cabdalla Sandheere. kooxdii labaad ee loo diray koorsadii Talyaaniga sanadkii 1953 ee soo qaatay tababarka ciidamada milatariga waxaa ka mid ahaa Jaamac oo Muuse, Maxamed Cali Mire, Cabdulle Barre Qalaaye, Cali Cilmi Barre, Cismaan Sabriye Cali Sokor iyo Ismaaciil Maxamed Eritrea. kooxdii saddexaad ee loo diray koorsadii Talyaaniga sanadkii 1954 ee soo qaatay tababarka ciidanka milatariga iyaguna waxay kala ahaayeen Maxamed Cali Samatar, Salaad Gabayre Kadiye, Maxamed Faarax Xasan Caydiid, Cilmi Nuur Tarey, Cabdalla Maxamed Faadil, Abuukar Gacal Mudey, Abuukar Xasan Weheliye Suulaley, Cabdulaahi Yuusuf Axmed, Ibraahim Rooble Warfaa Doonyaale, Nuur Cadow Cali, Maxamed Nuur Maxamed Baarqab, Maxamed Cali Sharmaan, Xasan Maxamuud Sabriye Gaamuur. waxaa xigay koorsooyin kale oo tababaro ciidanna ku soo qaatay, saraakiilna noqday dhallinyaro kale oo ay ka mid ahaayeen Cabdulqaadir Dheel Cabdulle, Maxamed Sheekh Macow, Cali Mataan Xaashi, Maxamed Raajis Maxamed, Cali Jaamac Cali, Axmed Ismaaciil Boqor, Tawaad Dhalin Fidow, Cusmaan Cabdulqaadir iyo Faytaan. ciidankii tiradiisu ahaa 2,000 ee laga soo qoray 6 gobol ee ka tirsanaa gobolada koonfureed ee gumaysigii Talyaanigu gumaysan jiray waxaa degmo kasta laga soo xulay 50 askari oo tababarka amaba kuruudka ay ku qaateen xerada Bootika oo markii dambe loo bixiyay dugsiga tababarka Xalane. ciidankaasi oo ka koobnaa 8 horimood ayaa taliyayaal looga dhigay 8 sarkaal oo dhalinyaro ah islamarkaana qaatay darajada kabtan amaba dhame. saraakiishii xilligaasi waxaa ka mid ahaa Maxamed Cali Samatar, Salaad Gabayre Kadiye, Maxamed Faarax Xasan Caydiid, Cilmi Nuur Tarey, Cabdalla Maxamed Faadil, Abuukar Gacal Mudey, Abuukar Xasan Weheliye iyo Cabdulqaadir Dheel Cabdulle oo xilligaasi darajadiisu ay ahayd 2 xidigle. kadib markii uu ciidanku dhammaystay tababarka waxaa loo kala qaybiyey 4 qaybood kuwaasoo loo
kala diray 4 saldhig oo ku kala yaala magaalooyinka Muqdisho, Beledweyne, Hargeysa iyo Baydhabo. qaybta koowaad waxaa loo bedelay magaalada Hargeysa, qaybta labaadna waxaa loo bedelay magaalada Beledweyne, halka qaybta saddexaadna loo bedelay magaalada Baydhabo iyo qaybta afraad oo lagu reebay magaalada Muqdisho. taariikhda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay soo martay heerar iyo marxalado kala duwan oo mid waliba leh qiimeynteeda gaarka ah. mudane Cabdulaahi Ciise Maxamuud 12 Abriil 1960 wuxuu ku dhawaaqay dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isagoona horay u saxiixayna dikreeto soo baxday 6 Abriil 1960 taasoo lagu dhisay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. sidaas ayayna 12 Abriil u noqotay maalin loo dabaaldego ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. allah u naxariistay mudane Cabdulaahi Ciise Maxamuud wuxuu taliyihii guud ee ugu horeeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u magacaabay rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye Generaal Daawud Cabdulle Xirsi Faynuus una dalacsiyay darajada sareeyo guuto. abaanduulka ciidankana waxaa loo magacaabay sareeyagaas Jaale Maxamed Siyaad Barre markii uu geeriyooday taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. allah u naxariistay Daawud Cabdulle Xirsi sanadkii 1965 waxaa jagadaasi loo magacaabay sareeyagaas Jaale Maxamed Siyaad Barre isagoona taliyaha ciidanka ahaa tan iyo sanadkii 1969 kadibna waxaa bedelay Generaal Maxamed Cali Samatar. marxaladihii uu soo maray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa loo kala qaybin karaa 3 qaybood. marxaladda koowaad waa intii u dhaxaysay sanadihii 1960 ilaa 1969 xilligii dowladihii rayidka ahaa ay jireen. xilliga ciidanka wuxuu ku jiray marxalad soo korid oo aan lahayn tababar sare iyo qalab intaba. inkastoo ciidanka tiro ahaan iyo toy ahaanba uu aad u dhisnayn, haddana wuxuu guulo taariikhi ah ka soo hooyay dagaalkii 1964 uu la galay ciidamada Abisinya oo uu adduunka la yaabay sida dowlad 4 sano jir ah ay uga adkaan karto ciidan boqortooyo ah oo 300 oo sano jiray kana ciidan iyo saanad badnaa. marxaladii labaad ee dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu ahaa intii u dhaxaysay sanadihii 1969 ilaa 1990 oo ah xilliga dowladii dhexe ee Soomaaliya ay gacanta ku haysay hoggaanka talada dalka. xilligaasi ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa xilligii uu ugu dhismo iyo tababar badnaa, waxaana la ballaariyay dhismihii ciidanka. waxaa la dhisay ciidanka lugta iyo qaybo kale oo ciidanka uu ka kooban yahay. waxaa la ballaariyay qaybihii gobolada dalka kuwaasoo ay xarumo u ahaayeen magaalooyinka Muqdisho, Dhuusamareeb, Hargeysa, Burco iyo Kismaayo. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xilligii dowladii dhexe wuxuu gaaray xagga dhismaha iyo farsamada heer aad u sarreysa, wuxuuna ka soo qayb galay dagaallo iyo howlo nabad ilaalin ah oo nabadgelyada loogu soo celinayo dalal ka tirsan qaaradda Afrika, taasoo uu ku kasbaday in loogu yeero libaaxyada Afrika. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu mar kale dagaal u la galay sanadkii 1977 ciidamada xabashida Itoobiya, kaasoo isna noqday dagaal kale oo runtii taariikh reebay oo ka yaabiyey dowladihii waaweynaa ee Ruushka iyo Mareykanka. haddii dagaalkaas dowladda Ruushka aysan soo faragelin lahayn, waxaa hubaal ahayd in Itoobiya gacanteeda uu ka bixi lahaa dhulka Soomaali galbeed. marxaladii saddexaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laga soo bilaabo sanadkii 1980 marka laga soo noqday dagaalkii loogu magac daray 77 waxaa ku bilowday nusqaamid kaasoo sii socday ilaa iyo sanadkii 1989 xilligaasoo saraakiil iyo ciidan fara badanba ay ku biireen jabhadihii mucaaradka ku ahaa dowladii dhexe ee Soomaaliya. taasina waxay dhalisay in awooddii ciidanka uu ku yimid dib u dhac. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu ugu dambeyn uu burburay sanadkii 1991 markii lagu amray in ay hubkooda ku wareejiyaan jabhadihii weerarsanaa. taasina waa tan sababtay in hubkii ciidanka uu gacanta u galo shacabka, dabadeedna la isku laayo qabiil dalkana uu u kala go'go'o gobollo ay qabiilo u taliyaan. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed intii uu jiray wuxuu ka soo qayb qaatay fatahaadihii webiga Shabeelle sanadkii 1961 taasoo uu gacan weyn ka geystay badbaadinta iyo soo bixinta dadka iyo duunyada amaba xoolaha ee ku noolaa deegaanka webiga Shabeelle. sidoo kale waxa uu ka qayb qaatay samata bixinta dadkii ku waxyeeloobay abaartii dabadheer sanadkii 1974 ee dalkeena ka dhacday iyo dejinta dadkaasi oo markii dambe la dejiyey dhulbeereedka iyo xeebaha sida Kuntuwaarey, Sablaale, Dujuuma iyo xeebaha Cadala iyo Baraawe loona bixiyey danwadaagaha. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu kaloo ka qayb qaatay kaalin muhiim ah ka ciyaaray ololihii bacad celinta Shalambood ee gobolka Shabeellada Hoose. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa dib loo abaabulay xilligii dowladihii ku meel gaarka ahaa iyadoo ujeedadu ay ahayd in dib loo soo
celiyo maqaamkii uu ku lahaa gobolka amaba qaaradda afrika. ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed isagoo weli ku jira dib u dhiskii iyo qalabayntii haddana wuxuu durbaba guulo lagu faani karo uu ka soo hoyey dagaalka lagula jiro kooxaha khawaarijta ee al-shabaab isagoona garab ka helaya ciidamada midowda afrika ee amisom si dib loogu soo celiyo nabadgelyada iyo horumarka dalka. ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa soo maray taliyayaal kala duwan oo sumcad iyo maamuus ballaaran ku leh ciidanka dhexdiisa iyo ummadda soomaaliyeed. sannadihii ilaa iyo waxaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taliyayaal ka soo noqday jenaraal daa'uud cabdulle xirsi, jenaraal maxamed siyaad barre, jenaraal maxamed cali samatar, jenaraal cumar xaaji masale, jenaraal aadan cabdulaahi nuur aadan gebyow iyo jenaraal maslax maxamed siyaad. burburkii dowladdii dhexe kadib sanadkii 2000 ilaa iyo 2020 waxaa xilal kala duwan ka soo qabtay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taliyayaal kala duwan kuwaasoo kale ah jenaraal ismaaciil qaasim naaji, jenaraal cabdi axmed guuleed, jenaraal cabdulaahi cali cumar ina libaaxsan ka taabte, jenaraal saalax xasan jaamac saalax liif, jenaraal siciid maxamed xirsi saciid dheere, jenaraal yuusuf xuseen cismaan dhuumaal, jenaraal maxamed geele kaahiye, jenaraal cabdulqaadir sheekh cali diini, jenaraal daahir aadan cilmi indho qarshe, jenaraal maxamed aadan axmed, jenaraal axmed jimcaale geedi cirfiid, jenaraal cabdiweli jaamac gorod iyo jenaraal ismaaciil yuusuf raagi oo lagu naaneyso odawaa oo ah haatan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. taariikhda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed intan kuma koobna waa ay ka sii ballaaran tahay, laakiin waxaan soo qaadanay inta ugu muhiimsan guulaysta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed.